ma isweydiinay meesha shuruucdii naloo soo gudbiyay ahaa sharcigii la dagaalanka argixisada meesha uu marayo ma isweydiinay sharcigii xakameynta hubka meesha uu marayo waxaan rajaynayaa kalfadhigan afraad inuu noqdo kalfadhigii ugu muhiimsanaa ee noo qabsooma oo laba rasna noo xirmanayso sharciyada waaweyn ee noo yaala ugu horeeya sharciga la dagaalanka argixisada anigu halkan ayaan soo istaagay markii maalintii dhacdadii naxdinta badan October 14 markii aan ka doodeynay in muddo 500 qof oo Soomaali hal maalin meel ku dhimato waxaan codsaday in sharcigaas oo la dagaalanka argixisada oo xukuumadda noo soo gudbisay golaha shacabka waajibadeena saaran marka sharci loo soo gudbiyo guddiga inuu ka doodo wax ka bedelo kadibna golaha la hor keeno sidee haddaan gacmaha ka xirno ciidamadii amniga ilaalin lahaa haddaan gacmaha ka xirno sidee ayaa amnigu u sugayaan meesha marka ay ka qoransantahay waxaa weeye si wada jira inaan mataqaanaa dalkan amnigiisa aan xil iskaga wada saarno ciidamada qalabkiisa inay maalin walba waxaan aragnaa keliya inta dhacda ama wax markay dhacaan keliya aragnaa laakiin bisweydiina inta ay ka hortageen ee la joojiyey macnaha ciidamadaas macnaha inaan waxaa rabaa halkaan aan nooga mahadceliyo dadaalka ay ku jiraan ay maalin walba ay naftooda dhiigooda ku horayaan ciidamadaas inaan dhaho in baarlamaanku iyo golaha shacabku garab taagan yahay anigu shakhsiyan aad baan ugu mahadcelinayaa qof walba amniga waajib baa ka saaran innaga ma aha xildhibaanaanu nahay xildhibaano inaanu baruur camal inta meel isdhibno dhahno ama burcad ina halnayo ilaaliyo maahan waxaad la socotaan ciidamadii dowladda tabarteeda waa ogtihiin tabarta layskuma nacaayo ciidamadii dowladda intooda badan innaga istaaf inaga yihiin annagay ina ilaaliyaan haddii maaragtay innagana waxaa laynaga rabaa aan haddana waa cabaadayna waxaa leenahay amni ma haysano amniga yaa inoo qaban kara yaa amnina siin kara waxaan qabaa aniga 300 iyo maxay tahay 30 qof haddaynu nahay qof walba qorigiisa qaato naftigeena aan dagaalano naftigeena aan dawladda la shaqeyno ee aan la shaqeyno xukuumadda aan la shaqeyno degmooyinka aan la shaqeyno ciidamada xaqiiqdii waajib baa ina saaran saacada lagu xigta dambe waxaan soo jeedinayaa in waajibaadka nin walba waajibaadkiisa u guto ayadana maarta golaha shacabka xukuumadda kaliya la saaran baarlamaankan ayadiisu qaata intaas oo dhacayaan oo dhibaatooyin dhacay baarlamaanku wuu taaganaa mudane gadoomiye mudane aliyo marweyn waxaan soo jeedinayaa 3 qodob ayaan talahaan u soo jeedinayaa number 1 hadda koor dhowr dood laga jooga microphone-kan aan ku sheegay guddiyada baarlamaanka oo saaran guddiga amniga iyo arrimaha gudaha iyo guddiga difaaca inay golaha shacabka warbixin keenaan hadda koor dhowr dood laga jooga halkaasaan ka jeedi haddana waa ku celinayaa in guddigaas gadoomiye loo xilsaaro warbixin keenaan intaas dooda ma dhacin guddiga wuxuu keeni lahaa qodobo farsamaysan oo loo keeni lahaa waa qodobka labaad mudane gadoomiye mudane aliyo marweyn ayad mara xukuumadda iyo baarlamaanka wada qaadanayaan annaga waxaan nahay dad Soomaaliya askarta laamiga taagan xukuumaddan waa soo gudbisay annagana waan ansaxinay $100 baan siinaa askarigi guriga kiriw degan yahay caruuru leeyahay xaasu leeyahay waalidu leeyahay magaaladan kirideeda iyo qaalnimadeeda waa la socotaan marka annaga nafteeni xukuumadda kaliya aad yaan saaran miisaaniyada hadda soo socota in askarta xuquuq la garanayaan seen askariga waxa maartay noloshiisa ku filanaan seen ciidankeena sharafta leh hay'adaha amniga aad bay u mahadsanyiin shaqo fiican ayay soo qabteen la'aantoodna maynaan hurdeen way inoo dhintaan way inoo dhaawacmaan dib kasta ayaa soo gaadha qorraxda ayay taagan yihiin roobka ayaa haya mushahar ku filan ma qaataan way dhibaataysan yihiin intaasoo wax way noo sameeyeen abaal baan uga haynaa aad bay u mahadsanyiin waxay ila tahay kaalintii shacabku inay maqan tahay shacabka markaa maxaa laga rabaa xukuumaddu inay wacyigelin badan u samayso kulligeena inagoo isku duwan wacyigelin shacabka loo sameeyo oo lagula taliyo inay iyaku amnigooda iyakuna dhinacooda ka sugaan gaar ahaan guriyay ka soo baxaan mas'uuliyiinta guriyay leeyihiin shacabka guriyay leeyihiin waxa mas'uulka ama xildhibaanka amaankiisa la sugi karaa markuu shacabkeenu amaan helo xildhibaankiina allaha caafiyo dibku soo gaadhay waxaan soo jeedin lahaa shacabka in la wacyigeliyo lagu wacyigeliyo degmooyinka ilaa gobolada ilaa magaalada meel kasta oo waqti badan la geliyo waxaan odhan lahaa
hooyo aabbo walaal dhalinyaro ammaankiina suga inagu gacmaheena ku jira inagu mid kasta wax sameynaya guriga ka soo baxa hooyo ayaa dhashay aabba dhalay waa inaan gaadsiinaa ilaa inta ilmaha 7 jirka ah uu sheegi karo dariskiisa cidda ku soo biirtay